بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد محمد ورسمة وكم عدد ديق فاندي وحان ربا إنان كهالله أرين كدعضي إن كسمايو أو ضد الدبق هذا اللي وميد كودس كوتشرا رجل دمر اللي يقول iyo صدنا لا yahay oo rag dumar isku jira oo raq iyo ruux ilaa hadda aan lahayn baan rabaa inaan ka hadlo oo ay dileen dadkaasi maamulka meeshaas Ras Kamboni oo Axmedoobe hogaamiye maamulka Jubba mana ahana markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed meesha lagu laayo oo jareeriye iyo jiraac leh waxaan rabaa marka arintan waa arin alfo xulo meehi qofkii hadalkan ku haboona meehi oo dad badan baa iga xaq leh haday taa odayaasha iyo dhalinyarada iyo waasiyada iyo ragga madaxda sare ah iyo siyaasiyiinta iyo dadka baarlamaanka ku jira kasoo jeeda Jubba ayaa iga mudnaa laakiin waxaan rajeynayaa in ay kuna kasoo qayb galaan oo halkan ay kuna qaybtooda ka jeedin doonaan arintan dhibaatada ka jirta meeshaas toddobada qof oo last intii 48 saac soo dhaafnay lagu dilay Kismaayo meedkooda la helay oo rag iyo dumar isku jira oo qaarna la qabsaday qaarna dhibaato loo geystay oo meedkooda la helay waxa dadkaas laayay maamulka jira Jubba oo Axmedoobe hogaansho oo qaarkoodna arrimaha bulshada ka tirsan yihiin qaarkood ka tirsan yihiin mataqaanaa madax ka yihiin arrimaha bulshada qaar ka yihiin booliiska iyo ciidamada ay ka yihiin oo beesha ku abtirsada mataqaanaa Ras Kamboni walaalayaal arintan arin loo dul qaadan kara ma ahan arin markii horeysana halkan ka dhacday ma ahan hadda toddobadan hal beelo beesha sida ka soo jeeda oo gobolka Sanaag Jubba soddon kale la ayaa rag iyo dumar ka soo rag iyo dumarka ana ayaguna waa beesha sida u dhasheen oo Jubba degta marka dibka in ka badan ummadda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan wata hor u sheegay baa loo wada geystay arintan arin oo aad loogu dul qaadan kara ma ahan waxaan mar ku cambaaraynayaa Axmedoobe iyo mataqaanaa iyo Ras Kamboni groupkiisa imaamka Jubba dadka dhibaatada ay xasuuq u geysteen waxaan leeyahay 30 kan qof hadda la leeyahay hadayna dilin waxaan si 24 saac gudahood soo daysaan arintan loo dul qaadan mahayo dad ogtiin dadkan beesha sida gobolka labaad ee Soomaaliya ayay ka yimaadeen oo gaday degan yihiin arintan arin aan mataqaanaa hadda hore u dhacdana ma ahayn waxaan arintan arin tilaabo dadkii u dhashay deegaankan Axmedoobe kula xisaabtamayaan adiga ragiina kala madaxda ah sida arrimaha bulshada iyo booliiska iyo ciidamada jooga waan ogsoonahay dadka dilay dadka ay mataqaanaa gabdhaha yar kufsadeen waa ognahay dadka xumaatada iyo gowraca ummadii u geysteen waa ognahay dadka ay gabdhaha oo ka uurkii caloosh ka soo riday waa ognahay arintaas waxaan u dul qaadanaynaa ma ahan waan cambaaraynaynaa Axmedoobe iyo kulligoodna waxaan u sheegayaa war meeshan hadii islahaydeen walan ka aamusayaayo waa Soomaali dadka iska gowracay dadka beeshaas ka soo jeedaba war xilliga aamuska ugu dhamaaday arintu sidii hore ma ahan waa la isku imaanayaa Kismaayo taangi Kenya tan hoostiisa ku jiri maysid Kismaayo oo ogtahay Axmedoobe adiga ragay la joogaba diyaarad baad uga soo dhaftaan kuna soo gashaan meel kale ka soo gali kartaan ma jirto ogtiin arintu saan ma qasnaan doonto arintu saan loogama aamusnaan doono dad baa dadkan ka dhasheen ayaka u istaagi doona ayaka mataqaana arintan ka galgalan doona ayaka hadda already way jirtaa way socotaa sidii arintan mataqaana tilaabo looga qaadan lahaa waxaan leeyahay Axmedoobe iyo ragii la shaqeeyo maamulka Jubba ka tirsan arintan inaan hadda sida ugu dhaqsaha badan ay ku joojisaan dulmiga iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku wadaan iyo qaybaha kala duwan oo dadka Soomaaliyeed ku wadaan dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war meeshan adinka ma dadka beeshii waxa lagu leeyahay dadka ka soo jeeday mataqaana Puntland baa la leeyahay kuwii Jubbooyinka dham jooga la leeyahay kuwa qaybaha kala duwan ee mataqaana Soomaaliya jooga la leeyahay adinkuna hadla ha musnaanina dibka waqtin qol walba meeshada dibka lagu geystay nimanka Ras Kamboni sidaan iskaga amba bixin lahayn waa inaan tilaabadeeda galaa iyo Axmedoobe isu dhaafin lahayn iyo mataqaana iyo kuwa kale oo la shaqeeyo oo arrimaha bulshada iyo booliiska iyo ciidamada u jooga marka saasan shacabka Soomaaliyeed kula talinayaa dadkii ay dadkan ka dhinteen waxaan leeyahay Ilaahay samraan kan siiyo kuwa dhintay kuwa hadda aan meedkoodi iyo mataqaana noloshooda leerina waxaan rajeynaynaa insha Allah in la helo mataqaana ayagoo nool in la helo haddii ay dhintaan hadda waqtigooda galay dadkii mar kale waxaan u tacsiinayaa shacabka Soomaaliyeed dadka beesha sade ee dadkaasi ay ka dhinteen hadda toddobada qof ah iyo kuwa kale hadda rajo fiican aan ka qabin ba waxaan leenahay mataqaana kuwii in la samro waayo kuwa dhinteen Allah u naxariisto kuwii nool waxaan leenahay Ilaahay ka soo daayay nimankaas mataqaana cadawga gacantooda ka saaro shacabka Soomaaliyeed kula meesha ay kan lagu laayeen ay ka soo kala u tacsiideynaya waxaan leeyahay mar kale ugu baaqaya Axmedoobe iyo groupkiisa war dulmiga wadan joojiya war hadayna joojin
dulmiga adinka laguhinu ka qarxi doonaa adinkeena ku imaan doontaa adinkay dhibaatadaas dib in kugu soo noqon doontaa baan leeyahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato meel joogtaba ilaahay dhibka naga qaado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh